habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyna waxa kamid ah mas'uuliyiinta Ruushka ayaa helay wax ay ku tilmaameen xadgudub khatar ah oo ka dhacay xarunta dukaamada oo ay ku dhinteen 64 ruux waxa la xiray meelaha dabka looga baxsado 5 qof ayaana loo hayaa falkaasi BBC-da ayaa heshay muuqaalka ilaalada xeebaha Turkiga oo lagu eedeeyay in ay garaaceen soo galooti isku dayay inay Yurub gaaraan dhulka oo kala dilaacaya dooxada Rift Valley waxay astaan u tahay cabsida ah in qaaradda ay kala go'ayso mas'uuliyiinta Ruushka ee baarayay dabkii ku dilay in ka badan 60 ruux xarun dukaamo oo ku taala Siberia ayaa helay wax ay ku tilmaameen xadgudubyo khatar ah waxay sheegeen in la xiray albaabada dabka looga baxsado ayna ilaalada ammaanka damiyeen habka digniinta 5 ruux ayaa loo xiray falkaasi Aisha Afrax ayaan inoo faahfaahinaysa warbixintan waa goob lagu dukaamaysto oo uu dab qabsaday dad badanina ay ku dhex jireen waxay ahayd galabnimo axad ah goobtana waxa dhex joogay qoysas fara badan mana aysan jirin codadka digniinta dabka dadkuna iyagoo wareersan ayay qiiqa sii dhex marayeen si ay u baxsadaan haweenayda duubtay muuqaalkan ayaa ku dhex jirtay shaneemo ku taalo dabaqa afraad waxa kaloo ay sheegtay inuu qaacu qabsaday dabaqa oo dhan iyo in carruurtu iyo dadka waaweynba ay ku sugnaayeen xaalad cabsi ah kooxaha gargaarka ayaa ku dadaalayay deminta dabka balse dabku dhaqso ayuu sii faafayay suuqan ayaa leh 2 shaleemo meelo lagu ciyaaro iyo qaybo lagu xanaaneeyo xayawaanada sidaas daraaddeed ayay dadka ku waxyeeloobay badankood u ahaayeen carruur dadka qaarkiis ayaa u cararayay saqafka dhismaha halka ay qaarka kalena ay ka sii boodayeen halkaasi cabsi iyo walwal ayaa jirtay nalalkuna waa dameen jaranjarooyinka socday iyo weeshashkuna ma shaqaynayn markii hore warbixin ayaa sheegtay in ay dad fara ku tiris ahi ay ku dhinteen balse gargaarayaasha ayaa ka helay meydad badan dabaqa ugu sarreeya iyadoo ay dad badani la la'yahay ayaa reerahoodu ay raadinayaan ninkani waxa uu sheegayaa inay labadiisa canug iyo xaaskiisuba la la'yahay kadib markii ay xaaskiisu u soo dirtay taleefan iyadoo weydiisatay inuu caawiyo dabka hadda waa la damiyey baaritaanna ayaa bilowday lagu eegayo dabka wixii dhaliyey laakiin magaaladu waa ay murugaysan tahay dadkuna waxa ay qabaan su'aalo ah dabku siduu ku bilowday maxaysan u jirin dhawaaqyada digniinta dabka iyo dhimashada dadkan badan markii ay maraysay halkii ugu sarreysay dhibaatada soo galootiga Yurub 10,000 ayaa si joogta ah oo sharci darro ah ugu soo gudbi jiray xeebaha Turkiga iyagoo doonayana kuga imaanaya Greega hadda ku dhawaad 50 ruux ayaa joogto u soo gudba waxayna u muuqataa in ilaalinta Turkiga ay guuleysteen marka la fiiriyo tirada ilaalada xeebaha ayaa lagu eedeeyay in ay garaaceen magangalyo doonka hogaamiyaasha midowga Yurub ee la filayo in ay ka hadlaan arinta Turkiga ay hay'adaha gargaarka waxa ay uga baaqeen in aysan indhaha ka daboolan xadgudubyada baahay Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa waa bishii Janaayo oo doontan sida dadka sharci darrada ah ay ka tagtay Turkiga oo waxa ay u tallaabaysaa Greega dadka saarnaa doonta waxa ay sheegeen in aad loo garaacay markii lagu amrayay in ay duubista joojiyaan calaa addiin iyo xaaskiisa oo Suuriyaan ah ayaa ku duubay muuqaalkan taleefanka gacanta waxa ay ahayd inaan raacno doontooda waxa ay isku hareereeyeen nimankeenna waxa ayna bilaabeen in ay garaacaan carruurteenna way oynayeen wayna qaylinayeen waxaan ka walwalay saygayga markaan doonta fuulnay ayay askari garaacday oo markii aan isku dayay inaan durqana kabahay wada tunteen markaanu soo gaarnay saldhigga booliska ee Turkiga waxaanu la ildarnayn jugtii naga soo gaartay garaacii aanu soo marnay hadda labadoodaba Greega ayay joogaan waxa ay ka mid yihiin 7,000 ee muhaajiriinta ah ee lagu haya Lesbos
dadka kale oo halkan jooga ayaa sheegaya in sidaasoo kale ciidanka ilaalada xeebaha turkiga si xun ay ula dhaqmeen. turkiga wuxuu midowda yurub la galay heshiis lagu joojinayo muhaajiriinta sharci darrada ah oo uu ku helay balaayiin yuuro oo lagu dhisayo xarumaha dadka magangelya doonka ah. waxaanu daawanay muuqaalo badan oo laga duubay isla dadka halkan doonyaha ku yimid. run ahaantiina waxay ka wada midaysan yihiin midhka aan odhan karo in dadkaas dalkan yimid dhammaantood ilaalada xeebaha turkigu wada qabteen oo dhib ay muteen. haddana dowladda turkiga waxa ay diiday inay ka hadasho eedeymahan ah in ciidankeedu uu garaaco dadka muhaajiriinta ah. laakiin warar laga helay saraakiil sarsare oo midowda yurub ayaa sheegay in arrintan ay hor dhigi doonaan madaxweyne Erdogan. waxa kale oo ay sheegeen in ay kadib eegi doonaan sidii wax looga qaban lahaa daruufaha ay ku nool yihiin kumanaanka qof ee muhaajiriinta ah ee weli lagu hayo jasiiradaha Greega. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka gelaya mobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. iyadoo ammaanka la adkeeyey waxay masaarida u dareereen 3 maalmood oo codayn ah doorashada madaxweynaha oo ay ku tartamayaan madaxweyne Cabdulfataax al-Siisi iyo siyaasiga aan wax badan laga aqoon oo ay adag tahay inuu muujiyo sida ay dhab uga tahay tartanka. madaxweyne Siisi ayaa la filayaa inuu soo noqdo mar labaad. hogaamiyihii hore ee Catalonia ee xukunka laga tuuray Carles Puigdemont ayaa la filayaa in la soo taago maxkamad isaga oo wajahaya in loo dhiibo Spain. haddii maxkamadda Jarmalka aqbasho eedaha loo haysto waxaa loo gudbin doonaa Spain muddo 2 bilood gudaheed. Maraykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogay 7 shirkadood oo Pakistan ah kuwaasi oo looga shakiyay in ganacsi nuclear ay ku jiraan. xafiiska warshadaha iyo ammaanka ayaa sheegay in shirkadahaasi ay leeyihiin khatar weyn amaba ay ku lug leeyihiin howlo ka horjeeda danaha ammaanka qaranka Maraykanka iyo danaha siyaasadda dibadda. waxa ay dharbaaxa ku noqotay rajada Pakistan oo ay uga qayb noqon lahayd guddiga caalamiga ee tamarta nuclearka. aaska dadka waa ganacsi weyn Koonfur Afrika iyadoo weliba caymiska aasaasiga lagu qiimeeyo ku dhawaad $5 bilyan. haddana dadku waxa ay lacag badan ku bixiyaan alaabooyinka ay ehelkoodu la jecel yihiin sida teendooyinka, sanduuqyada naxashka iyo calaama xabaaleedka qurxoon. laakiin qarashkan joogtada ah ma yahay mid dadku ay awoodaan mase horseedi karaa dayn fuusha qaraabada. waa kan Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. lebohang mokoena waxa uu taagan yahay qabrigii la dhigay walaalkiis oo sanadkii la soo dhaafay geeriyooday isagoo kubad dheelaya. reerkiisana waxay aad uga walaaceen qarashkii iyo qaabkii loo samayn lahaa aaskiisa. dalka Koonfur Afrika aaska qofka dhinta waxaa ku baxda ilaa $3,000. dadka qaarkiisna lacag intaa ka badan ayayba ku bixiyaan aaska qofka. aaska qofka waa inaad iibisaa naxashka maydka, teendo, kuraas, cunto iyo weliba lacagta qabriga. si lacagahan oo dhan loo bixiyo dad badan ayaa samaystay qorshe iyaga iyo reerahoodaba. waxayna tani keentay in ganacsiga aaska dadka uu kor u kaco wuxuuna gaaray ilaa $5 bilyan. aad buuna kor ugu sii kacayaa. dalka Koonfur Afrika ganacsi kaloo kobcaya waa dhagxaanta qabriga lagu qurxiyo. kuwani waa dhagxaanta ay shirkadda Batang samaysay. waad arki kartaa dhagxaantani qaarkood waa wax aan caadi ahayn. waxaa laga sameeyey dhagxaan qurux badan oo la isku dardaray. balse lacagahan badan ee taalooyinkan qabriga lagu samaynayo qarashaadka dalkaasi Koonfur Afrika ay dadka ku bixiyaan aaska. waxaan filayaa in reer Koonfur Afrika ay lacag badan ku bixiyaan duugta sababtoo ah neefka lo'da waa lacag, samaynta naxashka maydka waa lacag, raashinka ayaa meesha ku jira. waa tacsi weyn, waana arrin dhib ku ah reer Koonfur Afrika. waa arrin hal qof oo dhintay oo taabanaysa bulshada oo dhan. ma aha lacag la khasaareeyey, waa sida dareenkaagu yahay iyo sidaad u fasiranayso dareenka aad la lahayd qofka dhintay.
farshaxankaas oo gidaarkaaga aad suran karto adigoo ku soo iibsaday 1 milyan oo rand waa wax caqligala waa wax qof macno u samaynaya qof kalena aanu samaynayn shirkadaha aaska dadka ka shaqaysta waxay shaqaalaysiiyaan kumanaan shaqaale ah dalka oo dhan waxaana walaac laga muujinayaa xagga sharciyada iyo iyadoo ganacsigan uu aad u sii siyaadayo si lacaga looga sameeyo qof waliba waxa uu ganacsi u furtay aaska dadka balse sidee baa loo maamulayaa sidee baa loo horumarinayaa sidee baa loo raacinayaa sharciga nasiib darra taasu ma ay dhicin dowladduna uma leh awood xitaa ma leh aqoontii ay ku ilaalin lahaayeen shaqadaas dhaqaale ahaan dadka madow ee koonfur afrika waxay qiimeeyaan in la maamuuso qofka ka dhinta qabriga lebohang walaalkiisana waa mid si casri ah loo dhisay reerkiisana weli waxay rabaan inay sii qurxiyaan markay dhaqaale u helaan markana wararka cayaaraha ugu waaweyn ciyaar saaxiibtinimo oo maanta dhacday waxay ka mid ahayd ciyaar dhex martay Wales iyo Uruguay oo ahayd koobka Shiinaha qaybtii hore ee ciyaarta ayaa gool la'aan ku dhamaatay balse qaybtii dambe ayay Uruguay dhalisay gool taasoo ka dhigtay Uruguay 1-0 inay ku badiso Cavani oo u ciyaara PSG ayaana goolkaasi dhaliyay tenniskana gabadha koowaad ee Britain Johanna Conte ayaa la kulmi doonta Venus Williams wareegga afraad ee tartanka Miami Open kadib markii ay axadii si xaraga leh uga badisay Elisa Martinez dhinaca kalena isku aadka ragga waxaa maanta is arkaya Tonis Kokkinakis iyo Fernando Verdasco Lewis Hamilton ayaa sheegay in uu qaado marka shanaad tartanka baabuurta Formula 1 ay tahay mid aad la isugu dhawaanayo kadib markii Sebastian Vettel uu ka guuleystay tartanka Australia ka furmay ee baabuurta darawalkan gawaarida Mercedes ayaa hoggaanka lumiyay waxaana ka hormaray Vettel mar la hubinayay gawaarida dilaaca dhulka gobolka Rift Valley ee dalka Kenya ayaa muujinaya in Afrika ay kala go'ayso sida ay sheegeen khubarada deegaanka Suswa ayaa waxa dilaacay dhowr kiiloomitir ah kadib roob xooggan oo halkaasi ka da'ay waxa sidoo kale degay oo hoos u dhacay waddo weyn waxaa sii ballaaranaya dildilaaca dhulkan taas oo keentay in laga qaxo Cabdiraxmaan Bidhaan ayaana ka warramaya toddobaad ka hor halkani sidan may ahayn dhulka ayaa waxaa jilciyey iyada oo roob mahigaani ka da'ay isla markaasina uu dhulku kala dhaqaaqay dhulkii beeraha ayaa laba u kala baxay biyihiina waa ay go'een waxaa kaloo dhacday dariiqa laamida laftigiisana 2 jeer ayaa la daayac tiray laakiinse dawladdu waxay leedahay gaadiidleydu uma baahna in ay werweraan dad ayaannu heegan u gelinay marka ay arkaan isbeddel soo socda isla markiiba shaqaaluhu waxay xidhaan laamiga markaad dhulkan gudaha u sii gashaba waxaad arkaysaa 77 jirkan ee Ludnungama ayaa waxa uu baraarugay subax iyada oo dhulkii ay beertiisu ku taalay uu laba u kala go'ay dabeetana aad ayuu u cabsooday taasoo ku kaliftay inuu gurigiisii u dhistay ee 20 sannadood ku jiray uu isagu gacantiisii ku burburiyo dhulka ayaan dhigay aqalkaygii dilaaca ayaana soo gaadhay aqalkaygu waxa uu halis u galay inuu aasmo oo hantidaydu halkaa ku burburto hadda ma haysanno hooy deriska ayaannu marti u nahay aqoon-yahanada cilmiga dhulka ayaa sheegaya inay tani daliil u tahay in qaaradda Afrika ay kala go'ayso 2 milyan oo sannadood kadib oo Afrika ka dhigi doona 2 qaybood waa dooxo malaayiin sano ayuuna dhulka halkan ka kala go'ayay waxaana soo baxday inay jiraan meelo badan oo jilicsan oo keenay dilaac ma dhihi karno goobta oo dhan ayay saamaysay ee aan guurno balse waxa hadda muhiimka ah waa cilmi baarista iyo in la ogaado halka jilicsan laakiinse mustaqbalka dhow dadka halkan ku nool gobolka Rift Valley waxa ay rajaynayaan in aanay dul deganin dilaac dhulka ah oo dabeetana dhulka la jara ugu dambayntiina ma haysaa meel aad ku soo bandhigto sawir gacmeedkaaga darbiyada luqluqyada guryaha u dhaxeeya ee la maro Hong Kong waxaa ka buuxa sawir gacmeedyo farshaxanadaasi waxaa loo isticmaali jiray dhulka hoostiisa balse hadda farshaxanistayaal badan ayaa sawirkooda ku muujiya dadka iyo meelaha intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiinna intaan kulmi doonno waxaan idin leenahay nabad gelyo